Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Higsi Technology. Aniguna waxaan ahay Maxamed Xirsi. Dhammaan asxaabta ku xiran page-ka amase channel-ka aan ku leenahay YouTube-ka waxaan ka raaligelinaynaa cashar aan soo dhigin baryahan iyo su'aalahooda aan kasoo jawaabin. Sababtuna waxay tahay waxaan galay safar kadibna waxaan ku mashquulay waxbarasho oo waqti badan iga qaatay in aan stable gareeyo ayada. laakiin hadda laga bilaabo insha Allah waxaan rajaynayaa in cashiradeena sida hore u socon doonaan, jawaabna aan ka bixin doono su'aalaha soo weydiisaan. Anigu horeeyay qof ka mid ah asxaabta Higsi Technology ayaa wuxuu inaga soo codsaday in aan soo sameeyno cashir ku saabsan sida loo sameeyo business card anaga oo soo gaabinayno. marka aad isticmaalaysid Adobe Illustrator marka koowaad waa inaad soo furtaa Adobe Illustrator, kadib waa inaad aadaa file, kadib waa inaad dhahdaa new, kadibna waa inaad size-ka iska bedelaa oo aan ka dhigaa inch, kadib halkan ayaa waxaa ka bedelayaa 3.5 waa pelaca, dhirirka korana waxaan ka dhigayaa 2 inch, kadib okay ayaan leeyahay. business card-ka waa markaa u rabtid hal page. haddii aad ka rabtid laba dhinac waxaad leedahay file, kadib waxaad leedahay new, kadibna halkan ayaa waxaa ka dhigaysaa labo, okay, kadib size-ka sidiis ayuu ku ahaanayaa, okay ayaa leedahay. sidan markuu usoo baxo page-ka koowaad amase page-ka dhabarka ah ee waxaad ka dhigayso adiga ayay ku jirtaa, laakiin aniga kan labaad ayaan ka dhigayaa page-ka dhabarka ah. waxaan saarayaa hal color, colorkaas wuxuu noqon doonaa color, kadib inta stroke waxaan ka bedelayaa nil, inta waxaan ka dhigayaa colorka aan rabo shirkadeyda ay ku caan baxi rabto ayaan ka dhigayaa, maybe ina blue aan ka dhigo, maybe ina colorkan ka dhigo, hadba colorka ay shirkadu isticmaasho ama uu jecel yahay qofka custom-ka ah ee loo suubinayo. halkan waxaan u doonayaa waxaa waaye inaan gees ka dhigo ayaan rabaa, kadib sidaas ayaa ku daynayaa. kan marka waxaa u baahanayaa inaan iska xiro, kilig ayaan siinayaa, kadib waxaan leeyahay objective, kadib waxaan leeyahay lock, kadib select. yacni hadda ku dhufto ma shaqeynayo. kan ayaan ku dhufanayaa kilig markaan mouse ku siisid control 0 ayaa leedahay, wuu kuu soo dhawaanayaa. markuu sidan kugu soo dhawaado waxaan rabaa inaan gudan galo qaabka uu noqonayo business card-ka. waxaad isticmaali kartaa ay nooc oo aad doonto adiga, laakiin aniga mid gooni ah ayaa hadda sameynayaa inay la socoto isku day. marka koowaad waxaa u baahanahay loogadii qofka loo sameynayay. custom-kan kaba soo qaad waxaa lagu magacaabaa, waa mid ka mid ah asxaabteyda page loogadeeda ayaan u isticmaalayaa. halkan markaa soo dhigo waa logo, waan yareynayaa. loogadan waxay ka turjumaysaa magac, waxaan la dhahaa magaca Fatah Design Fatah Design and Advertisement. kadib waxaan isticmaalayaa markaan iskansado halkan markaa imaado Fatah Design, colorka loogadiisa waxaa ka dhigayaa colorka shirkadda ay caan ku tahay. okay, maxaa kaloo isticmaalayaa halkaas markaan marayo xariiqa soo qaadanaya amase waxaa sameynayaa text soo qaadanaya, magac ayaa qoraya oo ah Fatah Design. kadib Fatah Design waxaa ku sameynayaa farta ayaa ka bedelayaa, sideeda ayaan u wadayaa, folder ayaa ka dhigayaa Fatah Design and Advertisement. kadib tan waa yareynayaa, waxaa ka dhigayaa regular, kadibna farta intaa laga yareeyaa waa yareynayaa. okay, centerka ayaa ku aadinayaa, this shirkadda magaceeda, colorkana eyedrop baa taabanaya ama eye ayaa keyboard taabanaya, kan ayaa la daaranaya. inta markaa sameeyo waxaa sameynayaa halkan lineska ayaa line kasoo dooranaya,
inta ayaa imaanaya halkan waxaan ka sameynayaa xariiq yar oo line ah kadib stroke ayaa tagayaa colorkan ayaa dooranaya oo ah colorkan ii dooro okay colors markaas u doorto qofka business card loo sameynayo magaciisa kadib waa manager Cabdiraxmaan ama Cabdullaahi ayaa bixinayna Cabdullah Warsame saas markaa magaciisa u qorno waxaa dooraneynaa wax la dhaho darajadiisa qofkan Cabdullaahi Warsame darajadiisa maxay tahay muxuu ku joogaa shirkadda magac noocee ayuu shirkadda ku joogaa kadib waa soo koobiyeynaya intaas oo dhigaya waxaa ku qorayaa magac waa ninkan waa CEO shirkadda waaye kadib waxaa dooranayaa inuu bold yahay kadib kana waa yareynayaa waa u dhaweynayaa wax yar kana wax yar sidaa u sakinayaa intaas markaa sameeyo waxaa dooranayaa shirkadda locationkeeda website ama telefoonka shirkadda email hadduu jiro iyo waxsaas ah ayaa inta ku sameynaya marka koowaad waxaa u baahan waxa loo icons waxaa lahaa in icons waxaa lahaa shaybabka sida location icon ay leedahay ama waxay leedahay shayb ay leedahay kuma soo qaadada waa soo gelinayaa screenka shaashada computerkayga ay ku jiraan waa kuwan waxaa kasoo degsan kartaa Facebook Google-ka halkan ayaa soo dhigayaa ama banaankaas ayaa dhigayaa kan waxaa ku sameynaa waxa la laho image tracking marka kili ku siisid Adobe Illustrator-ka wuxuu ku soo saarayaa waxa la laho image tracking kadib waa ku dhufanaysaa image tracking shaqo ayuu ka qabanayaa halkan tracking ayuu ku sameynayaa process-ka markuu dhameeyo waxaa leedahay expandigaas markuu dhaho right click ayaa ku kor leedahay ungroup ayaa leedahay kadib qaybtan white-ka click ku siinaysaa del ayaa taabanaysaa ama delete qaybtan white ku dhufanaysaa delete ayaa taabanaysaa kadib waa yareysanaysaa waxaa dhex geysanaysaa documentigaaga kana sidoo kale track ayaa ku sameynaysaa kadib control 0 ayaa leedahay ama zoom waxa ugu horeeya aan ku shaqeysanayo waxaa waaye halka kan oo la dhaho location waa yareynayaa halkan ayaa dhigayaa kana sidoo kale waa call waa yareynayaa halkan ayaa dhigayaa waa isku aadinayaa kana sidoo kale waa yareynayaa waa email shirkadda kale kasoo qaad ama CEO-ga halkan ayaa dhigayaa wax yar ayaan ku darayaa weyninka tanna wax yar ayaa yareynayaa okay sidaas markay tahay saddexdan isku color ka dhigayaa highlighter wada saaraya eye drop ayaa taabanaya colorka ayaa dooranaya rabana ka dhig haddii halkan colorka aad rabin oo ku jirin waxaa leedahay marka kili ku siisid inta ayaa aadaysaa colorka rabta ayaa dooranaysaa meesha colorada laga doorto okay sidan markay kugu soo baxdo waxaa u baahanahay locationka magaciisa inaad siiyo waxaa u baahanahay inaad telefoonka lambarkiisa ku qoro waxaa u baahanahay emailka inaad qoro space isku mid inaad isku dhexaysiyaa isku dayayaa kadib waa ku dhufanaya halkan textiga inta imaanaya shirkaddan waxay ku taalaa Xamar Jadiid Muqdisho Soomaaliya kadib waaye farta waxaa ka dhigayaa regular waana yareynayaa sidoo kale waxaa soo koobiyeenaya qoraalkan alta qabana kaliya alta markaa qabatid oo qoraalka kor joogtid laba falaari ku noqonay sida hore uu sheegna waa soo jiidaysaa inta keenaya kadib telefonkiisa uu qorayaa then sidaas ayay noqonayaan waxaa kaloo iga sii dhiman qaybtan soo qaadaya oo ah loogada iyo magacii koobi ayaa soo leeyahay qaybtan aan kusoo dhufanaa pasta ayaa ku leeyahay qaybtan kalaa keenaya kalarka halkan aadaya kalarada white ayaa dooranaya
kadib waxaa ujeedaan in la bedelay kalarkii. qaybta gadaale oo waxaa waaye ID cardka laba dhinac waaye, qaybta hore waaye. waxaa kaloo kusii dari kartaa design waxaa rabtid. tanaa koobiyeynaya, control V ayaa leedahay, waa weyneynaya, halkan ayaa soo dhigaya, eeg waxaa ku sameeyo, waxaa capacity ama opacity ka bedelaya, waxaan ka dhigayaa 20 oo kale ama 10 oo kale ka dhigaya, blackna waa dooranaya. just marka waxaad moodaa tii hore inay kasoo qurxoon tahay, hadba sidaa rabtida adig ka yeelan kartaa, adaa iska leh design. qaybtan kale daa soo dhaweeyay sidaanay kusoo baxaysaa, markii hadhow la daabaco saanuu noqonaya. marka waxaan rajeynayaa inaad ka bogateen, shaarta iyo like-ta hilmaaminina, asxaabtana inaad su-aalaha iyo commentiga hoos noogu reebtaan, ayadana yaa la hilmaamin. insha Allah waxaan rajeynayaa in cashirka ka xiga aan si dhaqso ku sameyn doono. waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.